بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومركل مقال عصب وكم إذا مقال الذي أنا وهذا جرني الرماء بيرها يبرشدا يحيى الحريرة قيبتان حنو هذا لنا بكلب كان حنو هذا لنا storage أما قاب كوحلا كيديو أما النوعية وحلا كيديو ونقولنا هاي إن إنسان هذا كتيرين إن قاب وحلا كيديو oo ma la kaydin ay ka jirin gudaha wadankeena laakiin hadana waxa jiro qaybo hore u jiray oo wax lagu kaydsan jiray ilaa hadana ay dadka beeraleyda yaqaanin waxa aan marka sheegaynaa guud ahaan kaydin maxaa loo yaqaanaa deetana waxaan u gudbi doonaa in meeqa hab ay wax loo kaydsadaa intaas ka bacdu waxaan sheegi doonaa maxaa anagu intaas ka isticmaalnaa qaybtaan ka isticmaalnaa kaydinta horta waxa waaye waa in wixii la soo saaray la ilaaliyo laguna ilaaliyo sidii originalka ay ahaayeen lagu ilaaliyo on dib soo gaarin ama ham uu soo gaarin wax ay se ku darsamin ama bini aadanka dhibaya maadaama wixii de bini aadanku isticmaalayo ama xoolihii bini aadanku cunayay isticmaalayaan kaydin horta saas baa loo yaqaanaa qaababka wax loo kaydsado waxa waaye waxa jiro mid open ah iyo mid close ah iyo mid semi close ah saddexdaas nooc ayaa jirto waxa kale oo jiro qaybo lagu kaydiyo waxyaabahan vegetables-ka oo ah fridge-ka ama waxyaabahan qaboojiyaasha ah oo lagu kaydiyaa jirto ay waqti ku qaataan markaan u laabano kaydintii aan anaga isticmaali jirnay beeraleyda traditional isticmaali jireen waxay ahayd in god la qodo deetana waxa waaye meesha lagu shubo wixii la soo saaray deetana lagu dado halka laga isticmaalo oo loo yaqaano bakaar waxa kale oo jirto oo ayaama dhaxatimid in fuustooyin lagu shubo waxyaabihii la soo saaray si looga ilaaliyo waxyaabahan bahalada ah oo gala labadaas qaab ayaan hadda ka isticmaalnaa waxyaabo shirkado gaar ah oo fridge ka isticmaala way jiraan oo ayagana aan badnayn oo wax oo wadankii dhan kala gaara aan ahayn marka waxyaabaha caqabada ee jira ay ka mid yihiin oo u baahan in la xalliyo in la helo storage macquul ah oo daawooyinkiisii iyo waxyaabihii uu loo isticmaalayay wata marka waxa la dhihi karaa totally ma jiro storage lagu kaydiyo oo casri ah maanta waxyaabo la isticmaalaa oo cuntooyinkii lagu kaydiyaa ma jiraan inta badan markay nimankan iskale bakhaarada ay ka soo qaataan beeraleyda waxaad arkaysaa ayagoo bakhaarada inta ku shubeen af dheere galay wax badan ay ka halaabeen oo ka bacdi waxa waaye lagu leeyahay cuntadan way halawday waa la xaraashayaa marka la xaraashayo dadkii laga xaraashayaa oo isticmaalaya deetana waxa waaye waxa laga yaabaa inay cudurro ka dhashaan oo dadkii bini aadanka ay markaa dhibaateeyaan ninka ganacsadaha uma jeedo dhibaatadaas wuxuu u jeedaa oo kaliya cudurradii wuxuu u jeedaa oo kaliya dhaqaalihii uu sameynayay waxa kale oo jira in mararka qaar cuntooyinkii caadiga ahaa oo banaanka laga soo iibiyay oo ama burle ama bariisle oo waqti badan qaato deetana waxa waaye maadaama uu kayd sax ku jirin intii uu datekiisa caadiga oo taariikhda dhicin ka hor uu dhaco maxaa yeelay haddii shayga aan meel oo suugiti la dhigin waxa waaye xilligii loogu talagalay ka hor ayaa waqtigiisu dhacaya oo ama halaabaya deetana waxa waaye ay jawaano kale inta ku shubaan oo burburiyaan ay dib dadka hadana uga iibiyaan oo jawaano kale ay ku shubaan oo ka bacdina ay dheydka cusboon ay siiyaan marka waxyaabahaas oo dhan waxa waaye waxa loo baahan yahay in dadka lagala diriro loo sheego laga wacyi geliyo oo la yiraahdo in habkan storage-ka oo saxda isticmaala
si dadka caafimaadkoodana loo ilaaliyo adinkuna dhaqaalihiina iyo wax soo saarkiina u ilaashateen waa muhiim in la ogaado qofku inuu lagu wacyigeliyo haddii dadka dhibaato soo gaarto inuu asaga ganacsigiisu sii jiri karin oo loo sheego in ay ganacsigan sii ma jiri karo haddaad dadkii dhibaato u geysato ama waaba lagu ogaa karaa markii lagu ogaadana hadhowdii waxa waa dib waxaan ka soo gaaray oo in lagu qabto oo dhibaato ka soo gaartay noqonaysa marka waxyaabahaas oo dhan ayaa waxay u baahan yihiin in laga hortago oo tala laga siiyo dadka laga wacyigeliyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.